way soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rabaa inaan idin la wadaago xilka qaadista taliska ciidanka Jubbaland ee Danab iyo waliba sidoo kale warqad kale oo la yaab leh oo uu soo saaray taliya Carab Dheeg Axmed na lagu magacaabo taliyaha xilka laga qaaday haddaba maxaa looga qaaday maxayse tahay waxyaabaha lagu dhaliilay maxay ahayd khudbada ama hadalka dhawaan uu dawladda u soo jeediyay iyo waliba sidoo kale taasi oo u muuqatay in waqtigan la joogay aydan ka mudnayn ama markaasi hadal dawlad ku socda uusan u muuqanin xogtaasi ayaa rabaa in halkan kugu faahfaahiyo iyo wixii ka soo kordhay iyo taliyo oo markaasi xilka laga qaaday oo bulshada u sheegay inuu dhawaan la hadli doono waxyaabaha sababay in waqtigan xilka laga qaado soo dhow daawade haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalka waxaan ka dalbanaynaa markii ugu horeysay inaad like gareedo like-ta saaxiibo fara badan ee tusisa haddii aad inagu cusub tahayna nagu soo biro na soo follow garee ka mid noqo saaxiibadeena sida maalinlaha ee wararkeena halkan ogula socda waayahay soo dhawaad ninkan waxaa lagu magacaabaa taliya Carab Dheeg Axmed waa taliyihii ciidanka ee markaasi Danab ee magaalada Kismaayo ama maamulka Jubbaland iyada oo halkaasi maanta xilka qaadista ugu dhacday kadib oo uu qoraal dheer bartiisa Facebook uu ku daabacay isagoo oo u hambaliyay taliyaha kale ee xilka ka bedelay ama markaasi lagu bedelay waxaana sidoo kale uu sheegay in muddadii iyo waliba waqtigii adkaa ee uu dawladda u shaqeynayay intii karaamkiisa ah oo awooday ee waqtigan la joogay uu markaasi ugu soo dhalaalay sidii ay tahay laakiin waxa sabab u ah xilka qaadistiisa hadal dhawaan uu ka jeediyay warbaahinta isagoo oo sheegay in warqado fara badan ee markaasi dawladda u diray si saraakiisha ciidanka halkaas ku sugan ay u helaan dalacsiin iyo waliba sidoo kale in markaasi xilalka meelaha maanta ay joogaan meel ka sareeyay ay gaaraan laakiin waxaana sidoo kale hadalkiisa kadib daba socday in xilka laga qaado isagoo oo bulshada u ballan qaaday in uu markaasi xilka qaadistiisa waxyaabaha sababay waqtigan la joogay uu u faahfaahin doono ama markaasi u tilmaami doono misanaba u sheegi doono sida ku imaaday xilka qaadistiisa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayaana xilka qaadistan ku sameeyay walibana sidoo kale magacaabis weyn u sameeyay taliye kale oo markaasi ka bedelaya xilkan iyadoo oo muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Jubbaland xaaladoodu ahayd mid aad u cakiran taasi oo saameyn weyn ay ku lahayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ninkan ayaa ka mid ah inta badan hadallada soo baxaya ee sheegaya in uu si weyn ugu milmay siyaasadda isdiidan ee maamulka Jubbaland iyo tan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana sidoo kale jira in markaasi si xoogan dhinaca Axmed Madoobe u janjeeray isagoo oo nin taliya ciidan ah walibana markaasi hadda u muuqato in xilligan la joogay uu si adag markaasi ugu biiray masana markaasi mowqifkiisa ama jagadiisa uu markaasi siyaasadda uu ku dhaxmilansiyay isagoo askari ka ah laakiin waxaana inta badan isa soo tarayana sheegaya in markaasi taliyahan xilka laga qaaday saameyn weyn ku yeelatay hadal dhawaan uu baraha bulshada uu ku yiri in ka badan 7 jeer iyo 8 jeerba ay warqad ay soo qoreen una soo direen madaxweynaha si markaasi saraakiisha halkaasi joogta loo dalacsiyo laakiin uu ka waayay oo wax dalacsiin ah intaba uusan kala kulmin waxaana sidoo kale hadda soo ifbaxaya in si weyn markaasi isaga iyo saraakiil kale ba xiriir dhow u yeelanayaan ama ay u aadan ama ay u janjeerayaan Axmed Madoobe iyo waliba sidoo kale tiimkiisa iyadoo waqtigan la joogay ay tahay mid aad u cakiran xaaladda Soomaaliya waliba sidoo kale tan Jubbaland dhinaca kale taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in saraakiisha Soomaaliyeed aanan waqtigan la jooga looga baahnayn in ay si weyn ugu milmaan siyaasadda qalifsan ee Soomaaliya maanta xaaladeedu cakiran tahay looga baahan yahay in ay qayb weyn ka ahaadaan difaaca dalka iyo waliba sidoo kale horusocodsiida waa sidoo kale daadijinta nidaamka dalka iyo nabadda ee Soomaaliya laakiin waa saraakiil sarsare ayaa u muuqata in si xoogan ugu biirayaan ama markaasi ay ugu janjeerayaan siyaasiyiinta ee danahooda gaarka ka wata gudaha Soomaaliyana jooga kuwaasi oo inta badan dumin weyn ku haya dalka ee Soomaaliya wixii warar kale ka soo kordha baahinteena dambe ayaan idinku la wadaagi doonaa si share garee muuqaalka meel dheer nala gaarsi aragtidiina qaybta hoose ee faalada commentiga ayaad inagu wadaagi kartaan mahadsanidin